وهاش قيمة قدرنتا نجا مدن وحبنتا وحنا كو إجينا وحنا صورة جشي إن إنه لكلنا برنامج كن حقدان عن كلنا تليه هراء سلك بوليس كدقمة عبد واقع معمول كأهل السنة والجماعة وواحد بدن كسو قبتي إسبدل كي بلا سؤال أنت دقمة عبد واقع بشار كسدوا برنامج كن. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا دكسون عرفات بشي لبعض سنة كنا كتيرنا يعني دورتي إن قفتو سلك بوليسكا أنا نحل قادوني إن أنا سلك بوليسكا قفتو بس علماء ودين كأهل السنة والجماعة دورتين إلا مددا سنة كلوانا وحنا سلك بوليسكا سيدا دكسون مقالة عابد واحد من الله تودي واعتبرا إريري بدن ودوين شيرين أنت أنا وسلك هاي وحيابها عن قفتكو وحكمي ده dib u soo celinta bilicda iyo kala dambeynta nidaamka iyo qurxinta magaalada Caabud Waaq waxyaabaha aan qabtay kamid ah muhiimadooda koowaad waxa kale oo kamid ah sida tuugada oo aragtay ayaan u tadarkiisa sawiraantooda oo ka mamnuucnay gudaha magaalada in la jabsado guriyo ama tuugnimadii ama miyi magaalada sida arkayso xataa waxa jira xataa walow miyiga magaalada ka baxsan hareeraheeda dhan in hawlgallo badan ka sameeynay maanta tahay bishu 10kii bisha 10aadna xilka waxaan ku wareejiyay saaxiibkii Bila Bashiir Cali Mire oo ah taliyihii booliska horena u soo maray saldhigga booliska iminkana saldhigga booliska mar la dib u soo laabtay Bishar maanta waxaa hadlay taliyaha cusub ee saldhigga Bishar andehe Bila Bashiir Cali waxaana uu u mahadceliyay xilligii aad haysay talada saldhigga degmada Caabud Waaq marka maanta sidee u dhacday xil wareejintaasi عرفات حل ورجينتاني وواح مهمة سيدا دكسونتي وأنا وحا إيجا هوري تضبط مسؤول إيجا هوريسي أنا وحنا مسؤول كسيدات وصليقا حلقة قفطة مدة قدرنا حلقة هاي هذا نسيق وناكسنا حلقة وريتشي إنكستو إيجيران وحياة بدن حلقة أنا حلقة قفطي معمولك أهل السنة والجماعة وحياة وجدديسو أما مبديسو يا قبان كرا جغدان أما حلقة نيقودان كرا بل سمانت تايدي وايز بدشي حلقة هذا دب bishar waxaad iga warbixisaa maxaad isleedahay xilligii aad haysid kiisaskii ugu dhibka badnaa ama ugu cajiibsanaa ama waxyaabaha lagugu xasuusan doono aad ka qabatay degmada wax ma nooga sheegi kartaa tan ayada markaan mid iyo laba kaaga taabto xilligii ugu dambeeyay oo anigu hadda xilka hayay sida tuugo aan kusoo qabtay meel la yiraahdo Moqor ilaa laan tuubo oo ariyaha miyiga ku qalin jiray dadkayga aan soo xadidnay iminkana saldhigga booliska ku xiran kuna wareejinay taliyaha cusub ee booliska Sheekh Bila Bashiir waxaa jira in ay qiraal iyo codkoodana maqli doontid ama dhageysan doontid codkan ka duubnay iyo kiisaskooda sidaan u soo cadaynay waxyaabaha la yaab kale kamid ahayd waxa kaloo la yaab lahaa camal kamid ah in dambiilayaal gacan ku dhigilayaal oo degmooyinka kale aan ahlu sunna wal jamaa ka taliso aan gacan ku hayntooda lahayn karin in ay iminka ku xirxirin saldhigga booliska degmada Caawda kuna guuleysan in muddo dheer saldhigga ku hayno waxaad iga warbixisaa dikreetadan cusub ama wareegtadan cusub ee ka soo baxday maamulka culimadiinka ahlu sunna wal jamaa ee lagu magacaabay Bila Bashiir wax ma nooga sheegi kartaa maadaama adigu aad wax badan ka soo qabatay sidaad carab ku dhufatay ama muuqata wax aad ka qabatay bila soo celinta degmada maxaa keenay baad isleedahay in xilligan laga wareejiyo halkaasi sabab kulli dabcan horta midda koobaad xil wareejintu ma aha mid dhibaato ah oo wax hore u jireen xilka la iska qaado qofna loo dhiibo balse tanad waxaan oran karnaa ma aha xil wareejin sharci official oo dhacday waa mid marka maamulka ahlu sunna wal jamaa hore cid kasto xilka qabanayso qofka howlkarnimadiisa iyo aqoontiisa dadnimadiisa ayaa loogu dhiibi jiray iminka baltaa way isbedeshay waxa jira xubnaha dal soo doortay aan idaacad ka dhageysanaysay sida uu meediyaha ugu dhageysanaya xataa goobta doorashada laguma yeerin mana joogin waxaan oran karnaa maamulkii wuxuu isu bedelay 4.5 ama wax deegaanka loogu yaqaan afar waaxood markay taagashay afar waaxood kadaanu faamiladan ka soo jeedo ama faamiligan ka soo jeedo waxa kamid maahan sida awgeed marka waxa iminka doorashada noqotay 4.5 maxaad ku cadeynaysaa taas Bishaar taliyii hore ee saldhigga degmada Caabud Waaq wax cadeyn oo arintaasi ku muujinaysa ma jiraan ha si wanaagsan waxa cadeynteedu waa waxa cad oo umada degmada Caabud Waaq ku nool dadka deegaanka Caabud Waaq ku nool oo dhan waa mid waadix ku ay wada ogsoyin maamulka waxaa jira 22 xubnood oo gudoomiyaha degmada u sareeyo 22kii xubnood xubinka ka anigu aan haymaan 22 koodii kale sida ay xubnaha u hayaan oo isku shaandhayn baa la isku shaandhay laakiin
lagama xilka qaadis ma jirto isku shaandayn baa jirtay laakiin anigu xilkii aan hayay xataa walow ayadana sabab li yeelin sababkaas ayaad xilkii ku weyday sida nidaamka shuruucda naqaanana waxa way dawliga in qofka dekreetada la siinhayo loo soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay amaantii uu ka leeyahay iyo wixii uu baashay dambigood in loo soo bandhigo oo la yiraahdo dambiga noocaas ayaad xilka ku weyday ama xil gudasho la'aan ama ku tagrifal awoodeed waxyaabo badan baa qofkan sabab loogu dhigaa haab yaraatay wax maamulka eed oo maanta anigu ii soo bandhigay iyadoo jirin ayaan media ka dhageystay in xilka loo dhiibay taliye Bila Bashir taana anigu kulli anoon hadda ka caronin laakiin waxaan oran karaa way isbedelay nidaamkii ahaa ahlu sunna wal jamaa oo wixii soo bedelay 4.5 ama 4 waaxood sida ayaan anigu waana cadana dee waxaadna ku ogaanaysaa in deegaankii xubnihii anigu aan wada shaqaynayo regimka ahaa ay maanta sii shaqaynayaan xibinta kale goobta ka maqan anigu aan haytaa ayaa ku cadaynayso eedan maanta aad jeedinaysid waa mid aad looga dhaga taagi doona maamulka culimadiinka ahlu sunna wal jamaa uu cusub yahay waa mid ugub ah haddii eedani maanta taliyihii saldhiga ee degmada oo wax badan ka soo qabtay bila soo celinta degmada oo kale aad lagu xasuusto maxay u dhimaysaa baad isleedahay jiritaanka ahlu sunna wal jamaa wax weyn bay u dhimaysaa waan oranayaa maadaama shacabka hadda degmada caawada ku nool waxaan oran karaa 100% waa shacab aad u wanaagsan danaynaya nabadgelyada iyo horumarkooda balse maamulka deegaanka ku jiro waa mid cadiifada ku dheehantay muddo ilaa dhowr bilood ah wax qabadkooda ama shaqadooda ama xilkasnimadooda waxaad oran kartaa waa arrin cadiifadeed oo aad muuqanayso inkastoo shakhsiyaad hawshaas aad ugu ololeynayo dabcan ay jiraan oo magacyadooda halkan aan ka sheegin laakiin aad ugu ololeynayo in 4.5 wax lagu qaybiyo cidii markaa 4.5ka ama 4 waaxoodka ama sida deegaanka loogu yaqaano 4 bahal cidii aan kamid ah inay xilka qaban karin kulli waa cadaan jira waadax weey bishar waxaan ogsoonahay in aad ka soo qayb gashay halgamadii ahlu sunna wal jamaa ay ka gashay gobolada dhexe ee Soomaaliya marka dadka deegaanka u dhashayna waad kamid tahay marka ma ahlu sunna wal jamaa ayaad ku cadaynaysaa in 4 waaxood haatan ay surtay dabcan way muuqanaysaa de wax cadaan weey waadax regimkii anigu aan kamid ahaa hogaaminay gudoomiye Xasan Cabdi Calas markii aan isbuuc ama 2 isbuuc ka hor waxaan sugahayay ama dadka dhan ay u dhaga taagahayeen in la rido oo maamulkaas maamulkii bedel laha la keeno aniguna dabcan maamulka aad baan u soo dhaweynay in maamulkiiga hadii hadac la yimid ama shaqayn waayay ama shaqadii dabac la timid in maamul cusub oo aragtiisa qabo la dhiso oo regimkiiga bedelo taamaysan dhicin 22 xubnood oo anigu aan xubinta ka ahaa regimkii sare oo gudoomiye Xasan Cabdi Calas ka ahaa ilaa imigsidooda ay u shaqaynayaan xubin kasta ayagoo isku shaandayn iyo xubinteedii taagan balse dabcan markaan uu xilka qaadis aanan sabab lahayn laga qaaday de wax cadaan oo waadax weynay 4.5 tahay arrintu ama 4 waaxood ugu dambeyn waxaan ku weydiinaya yaa dusha ka saaraysaa eedan lama wada laho ahlu sunna wal jamaa inay u dhameen baa laga yaabaa arrinkan iyo arrinkan ka soo fulay baad isleedahay arrintan sababkeeda oo leenka la magac baxay marjaca ama la baxay golaha shuurada ama marjaca qolooyinka ayaa sabab ka lahaa dabcan markaan aan shakhsiyan xiriir badan sameeyay sida gudoomiyaha degmada ama taliyaha amniga ama xubnaha kale ee mas'uuliyiinta militariga wax la kuma lahan arrintani waa arrin nimanka la magac baxay marjaca ay kulli mas'uuliyadeeda leeyihiin weeyaan ay doonayeen dhibaatayntan ama anigu shakhsiyan ay u dhacday ama dadka kale oo ila sameeyay ku dhacday arrin ay mas'uuliyadeeda qaadayaan baritan qolada marjaca leeyahay